إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan umada Soomaaliyeed uga tacsiinaynaa geerida sareey guud Farxaan Maxamuud Aadan oo ahaa taliyihii qaybta guud ee gobolka Banaadir ee ciidamada booliska Soomaaliyeed Farxaan wuxuu ahaa astaan u taagan halganka wuxuu ku jiray howlgal uu ku badbaadinay dadkiisa dalkiisa qarnimadii ay qasayaan argagixisada al-shabaabna in dib loo soo celiyo wuxuu qayb ka ahaa hormuudna ka ahaa hawlaha dib u xoreynta ee dalka ka socda saad ogtihiin hawlgallo waaweyn ayaa deegaano kala duwan oo dalka ka socda hawlgalladaas waxaa lagu badbaadinayaa dadka shacabka ah waxaa lagu badbaadinayaa deegaanka waxaa lagu badbaadinayaa qarannimada marka Farxaan waa shahiiday saaka asoo hawlgal ku jira wuxuu ku shahiiday deegaan u dhaxeeya Basra iyo Balcad waqtiga ayaa dhamaaday laakiin hawlgalkii intaas kuma ekaan doono Farxaan saaxiibadiis iyo ciidankiisii iyo ciidanka dhamaan deegaanada kala duwan ee dalka ku sugan iyo dawladda Soomaaliyeed waxay u taagan tahay halkankaas oo Farxaan sareey guud Farxaan uu ku baxay ayaa loo taagan yahay dadka waxa dhaqaajiyay taliyaha maanta naga baxay iyo nabadoonkii shalay naga baxay iyo dad kale oo qiimo lahaa oo ummadan ay leedahay culimo leh ganacsato leh dhaqan leh siyaasiyiin leh waa in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dal degan oo xasiloon oo barwaaqo ah horumar gaaray dal ku nool dadka asaagiisa adduunka ku nool say u nool yihiin waxaad ogtihiin dadka Farxaan saaka u baxay inuu badbaadiyo waa dad ceelashoodii la burburinayo beerihii tabcan la xoolahoodii raacila oo baad laga qaadayo dad noloshii loo diiday inuu xoreeyo ayuu u baxay saad ogtihiin saakay deegaanka Gariley ee gobolka Gedo waxaa lagu weeraray ceel la qodaayay oo bulshadiisa abaabushay ay qodanaysay ريجي على أو ضد برايفت إسكالهنا شعبه ولا جوبي لبيه تم قفنا ماشى على جول هاي وحالمي ده وحي كده عاي بحذو وحالمي ده وحي كده عاي ديجانا ده قل مدوق هرشبيل أو دكتهين بابورتي راشين كودين لجوبي ضدكي أو سوجر ويل الماء يحرر إن الله مركز عيدا كقرق الصوماليات أو ما أنت كبحي سريجو تفرحان وحي أتاجيهين badbaadada dalka dadka ay u baahan yihiin waa tacsiinina ehelkii qaraabadii asxaabtii intii jecleed oo anaga aan ka mid nahayna iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa ka tacsiinina laakiin xanuunkaas ma ahaanay mid naga joojinay hawlgalladii socday inay socdaan bixitaanka Farxaan iyo dhiiga Farxaan wuxuu dardargelin doonaa hawlgallada dalka dib loogu xoreynayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh